Ku soo dhawaada qiso murugo badan oo ka sheekeynayo nin laba xaas isku guursaday. Qisada ayaana ku bilaabanaysa sida tan. Ka hor intaanan guursan xaaskayga dambe, waxaan lahaa xaas aad u qiimo badan oo ii dhashay laba carruura. Waxay ahayd gabar kaftan badan oo i ixtiraamta. Weligay waxaan dhibsado oo aan xasuusto imaysan oran. Waa in rag iyo damaciise waxaa ii bilaabatay haba guur inaan gabar labaad guursado ayaan damcay. Weliba gabadha labaad aan isku baranay magaalo aan shaqo u tegay bari dhoweed. Gabadhii baan guur ka dalbaday, iyadana way iga ogolaatay. Kadibna waxaan weydiistay reerkeeda, gaar ahaan aabbaheed, wuuna i siiyey. Wuxuuna igu wargeliyey inaan u soo diyaargaroobo uuna qabsado waqtigii meherka. Subaxii aan gabadha mehersanaya habeenkeedii ayaan xaaskaygii hore u sheegay inaan beri mehersan doono. Inkastoo aan ka dareemay inaysan ku faraxsanayn, haddana wax dagaal iyo buuq imaysan muujin. Waxaa la gaaray subaxii ballantu ahayd. Waxaan xaaskayga ii soo diyaaristay quraacdii. Aniga intaan cunay ayaan galay qolka hurdada oon ka soo labistay. Kadibna hoteelkii meherka ka dhacaya ayaan si toos ah u aaday iyadoo ii jeeda xaaskayga. Waxaan la aqalgalay xaaskayga anigoo ka maqnaa gurigayga muddo isbuuca oon shaqadana fasax ka ahaa. Markii aan reerkaygii hore ku soo noqday ayaa waxaan xaaskayga aan juuq lahayn u imid. Waxaad mooddaa inuu shoog ku dhacay. Wax kastoo aamusnaan ayay ku qabanaysaa, kelmadna kama soo baxayso afkeeda. Markii hore inay ii caroonayso ayaan mooday, laakiin sheekadu sidaa way ka duwan tahay. Muddo bilo ah markay sidaa ahayd, weliba ay tahay fool sadkeedii go'ay, ayaan is iri bal gabadha sidaan kuma eegan kartide dalxiis yar u saar oo soo maseerna tirna sii. Waxaan weydiiyey safar dhulka ama cirka ama badda midka ay xiisayn lahayd. Waxay dooratay safar badda maadaama aynan hore doon u raacin. Magaaladan ku noolahay magaalo la jaara oo bad leh ayaan dalxiis u tagnay. Kadibna waxaan kiraysanay doon, weliba aniga ayaa naaquude amba wada ka ahaa maadaama aan aqaanay sida loo kaxeeyo. Goor casar gaabada ahayd ayaa mar keliya ayaan annagoo ku jirnaa badda dhexdeeda oo weliba badweynta dhex marayna uu roob qabsaday. Mowjadihii badda ayaa inagu kacay oo doontii ayay kolba dhan u dharbaaxeen. Waan dawaqnay oo jihadii baa naga luntay. Sidii roobka noo hayay annaguna aan kolba dhinac u soconnay ayaa gabalkii noo dumay. Wax isku kaaya darsamay madowga habeenkii, madowga badda iyo midka roobka. Waxaynu galnay saddex madow cabsi badan ayaana ila soo diristay. Intii hore oo dhan ilaah nimcadiis ayay ahayd. Doontii baa dalooshantay oo biyuhu soo galeen. Qori ayaan ka jarannay oo ii xajiso ayaan iri. Aniga oo haabeena ayay naxdintiisoo gabadhii fooli qabatay oo wayba foolatay. Naxdintii ugu darreed ayay ahayd. Cabbaar kadib ayaa ilmihii madaxa keenay. Waryaahe i caawa ayay igu tiri, oo maxaan u qaban karaa haddaan looxdii sii daayo? Waynu halaagsamaynaa. Anna wallaahi dhag jalaq umaan siinin. Iyadii ayaa iska umulisay. Waxay igu tiri, war ilmihii waan hayaaye xudunta iga jar, balaayo kugu dhacday badda ku tuur. Ayaan ku iri, igamay dhegaysane. Xuduntii bay ka goysay ilmihii. Gacantii anigii ugu haysatay maana gacanti kade iyo ilkaheeda ayay xudunta ugu jartay cunuga yar, oo intay ilmaha dhabta u soo dhaweysatay anigiina i xajisatay. Aniga waxaan ku leeyahay oo ku celcelinayaa naga tuur, yuusan nagalaafa nolosheenna. Dhowr saacadood annagoo sidii u ballanbalayna ayaa markabna arkay oo na badbaadiyey. Kadib aniga kooma ayaan galay, halkii gabadhii ayna ka qasnayn oo iska sii wadatay howlaheeda, ilmaheediina ay nuujinayso. Mar kasta oo la yiraahdo wareysta ninkan, anigu kooma ayaan galaa oo waxaan iska ooyaa, halka gabadhu uga sheekaynayso dadka wareysanaya wixii oo dhacay oo dhan. Maalintii dambe ayaan weydiiyey oon ku yidhi, walaalay qalbi adkidaa, aniga oo nin ah ayaa ka sheyn karaynin wixii nagu dhacay, adna mid mid ayaad uga wareemaysaa. Waxay igu jawaabtay in adeer maalintan maalin ka adag ayaa i soo martay oo wax fudud ayayba agteeda ka ahayeen. Waxaan ku idhi, waa maalintee maalintaas sheegayso? Waxay igu tiri, waa maalintii adigu naag mehersanaya intaad habeenkii ii soo hoyatay, gurigayga ka libisatay oo aayar iga baxday. Maalinta
ayuu qalbigaygii daatay oo ii burburay. Marka waxaani waxbaba agteyda kama ahan. Markaan arkay in xaaskayga xaalad adag ku sugan tahay, ayaan go'aan ku gaaray in aan furo xaaskaygii dambe. Waxaan siiyey lacag badan oo raaligelin ah iyadii qoyskeedaba. Sidoo kale meherkeedii ayaan siiyey. Waxaan sidaa u sameeyey si aan u badbaadiyo hooyada carruurteyda oo ahayd gabar nolosha ila soo dhistay, wax badanna ii soo samirtay, kuna abaaldhici karin. Sheekadan ninkay ku dhacday waa nin Soomaali ah oo qurbaha ku nool. Waxaan daawaday isagoo ka sheekeynaya, kadibna waxaan isku dayay in aan ummadda u soo gudbiyo. Sheekadan waxaan ka soo xigtay oo qoray Faarax Ayaanle Dayaxweer. Waxaan idinla socodsiinayay wariyaha arrimaha bulshada Gacal Ayman. Haddaba si aad sheekadan iyo sheekooyin kale oo xiiso badan aad u heshaan, fadlan subscribe saar barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Gacal Ayman.